السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaan goor kasta oo noqon dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha nagamada meel walba aad joogtaan, waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka loo tarjumo luqadaha muuqaalada YouTube-ka, gaar ahaan markaad isticmaalayso telefoonkaaga. balse marka hore daawada, haddii aad tahay saaxiibka cusub channelkeena Hanweyn Media, waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto, sidoo kalena aad furto gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee mar waliba hela muuqaaladeena cusub. sidoo kale ha ilmaamin inaad like, share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan. mahadsanid, weligaana guuleyso. dabcan muuqaalkan waxa uu qayb labaad u yahay muuqaal hore oo aan kaga hadalnay qaabka loo tarjumo muuqaalada YouTube-ka, gaar ahaan markaad isticmaalayso computer-ka. qaybtana waxaan ku daawan doonaa oo ku baran doonaa qaabka muuqaalka YouTube-ka loo tarjumo adigoo isticmaalaya telefoonkaaga. marka hore waxaad soo kicisaa browser-ka loo yaqaan Google Chrome. haddii aad isticmaalayso browser kale oo ka isticmaasho internet-ka waad adeegsan kartaa, balse aniga waxaan isticmaalayaa Chrome-ka ayaan soo furayaa. dabcan marka uu sidan kugu soo kaco Google-ka, waxaad imaataa halkan geeska ay ku qoran tahay 3 dhibcood, halkaa taabo. kadibna waxaad ka doorataa qaybtan ay ku qoran tahay desktop site, halkaas jogsi. marka waxaad sameysaa youtube.com, waxaad ku qortaa qaybta sare. kadibna okay dheh. dabcan marka uu sidan kugu soo kaco YouTube-ka, waxaad imaataa qaybtan searching-ka, halkaasna waxaad ku qortaa magaca muuqaalka aad rabto inaad tarjunto. tusaale hadda aniga waxaan rabaa inaad tarjumo muuqaal ay soo dhigeen BBC. tusaale kan ayaan dooranayaa. kadib waxaad imaataa qaybtan muuqaalka dushiisa ay ku qoran tahay setting, halkaa jogsi. kadib waxaad ka doorataa qaybtan loo yaqaano subtitles, halkaa jogsi. kadib waxaad ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay auto generated, halkaa jogsi. sidoo kale mar labaad ku soo laaba subtitleska, jogsi halkaa. markan waxaad imaataa qaybtan ay ku qoran tahay auto translate, halkaa ku dhufo. kadibna raadi luqadda aad jeceshahay in lagu tarjumo muuqaalkan. maadaama aan ahay Soomaalina, waxaan dooranayaa luqadda Soomaaliga. hoos u soo rog, halkaana ka raadi. dabcan waan helo, waa ku dhuftay. iminkana waxaan sugayaa in muuqaalkan lagu bedelo af Soomaali. waad aragtaa iminka in lagu bedelay. dabcan muuqaalka ayaa xogaa weyn iska soo yaray. hadda waad aragtaa muuqaalka in lagu tarjumo luqadaada hooyo oo af Soomaali ah, isla markaana waad fahmi kartaa Englishka ay ku hadlayaan qoladan BBC-da. muuqaalkanna waxaan ku baranay qaabka loo tarjumo isla markaana luqada fahmi karta looga dhigo muuqaalka YouTube-ka markii uu ku baxayo afqalaad. waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ka faa'iidaysateen. muuqaalkii xiginta kulmi doona halka Cabdirasaaq Cabdullaahi idinku dhaafay sida nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.